kombiyuutarka hortiisa miyaad ku qaadatay waqti badan? haa, qaar badan oo inaga midi waxay ku qaataan saacado. saamaynta uu ku leeyahay caafimaadka bini'aadanka kombiyuutarku iyo waxyaabaha uu keeno daraasadaha laga sameeyey ayaynu eegi doonaa maanta. ku soo dhawaada barnaamijka. daraasad ay samaysay American Optometric Association ayaa waxaa lagu tibaaxay inay keeni karto kombiyuutarka oo waqti badan hor fadhiya cudurka loo yaqaano computer vision syndrome oo ay keento kombiyuutarka isticmaalkiisa badani. siyaabaha lagaga hortagi karaa waxaa ka mid ah in la samaysto safety oo ah siyaabaha kombiyuutarka ku isticmaalayso sidaad hor fadhiisanayso gacmaha iyo lugaha waa udhigto position. qodobka labaad, dhammaan kombiyuutaradu waxay leeyihiin qayb radiation. dhammaan kombiyuutaradu waxay leeyihiin waxa loo yaqaano cathode ray ama CRT oo ku yaala dhanka muraayadda ama shaashadda, kaas oo keeni kara kansar iyo cudurro kale. daraasad ay sameeyeen saynisyahanadu waxa sheegay kombiyuutarada oo la dhigo guryaha iyo qolalku inay keeni karto waxa loo yaqaano male fertility ama dhibaato ninka ka soo gaadha xagga dhalmada. sida caadada kombiyuutarku waxa uu keenaa madax xanuunkaas oo sababteeda leedahay ashyaada loo yaqaan illumination, patterns and images, kuwaasoo macnaheedu yahay 24 saacadoodba inaad mar bedesho shaashada kombiyuutarkaaga 24 saac ama 28 saacadoodba inaad mar nadiifiso shaashada kombiyuutarkaaga. sidoo kalena aad eegto meel kombiyuutarka shaashadiisa ka yara fog 15 mirirba.